nadiga Barcelona ayaa u hanjabtay xidig kamid ah xidigaha ay ku dartay liiska ay fasiix doonto hadii uu diido inuu ka dhaqaaqo kooxda inay ciqaabi doonto. kooxda reer Spain ee Barca ayaa suuqa kala iibsiga xagaagani waxay sameynaysaa in xidiga ay safkeeda ka fasaxayso kumana ay ku soo darsanayso. xidigaha ay safkeeda inay ka fasaxaan doonayaan waxa qayb ka ah xidiga Martin Braithwaite oo ay doonayaan in Camp Nou ay ka diraan halka xidigan qudhiisa uu go'aansanayo inuu ku sii nagado kooxda ka arimsan garoonka Camp Nou maadaama qandaraaskiisa uu ku eegay ilaa sanadka 2024 mudana uu harsan yahay. Barcelona xidigaha ay doonayso inay ka fasaxdo kooxdani waxa qayb ka ah Oscar Mingueza, Rick Puig, Martin Braithwaite, Lenglet, Umtiti kuwa ay doonayso inay meesha ka saarto maadaama ay si gaar ah liiskooda u qoran doonayaanna inay kooxo u kala raadiyaan sidii ay ku fasaxi lahaayeen. laakiin Braithwaite arintiisa ayaa noqotay mid si aad ah saameyn u yeelanaysa maadaama xidigani uu go'aansanayo inuu baaqi ku sii ahaado ama uu ku sii nagaado kooxda ka arimsan Camp Nou. heshiiska uu kooxdani kula jiro waxa uu dhici doonaa xagaaga 2024 qadaraaskiisana muddo ayaa ugu harsan oo halka la ciyaareed gaaraysa. isu soo wada duwa wargeyska Sportska ayaa sheegaya in Barca ay u sheegtay xidigan Daanishka inay ciqaab marin doonto hadii uusan ka tanaasulin aragtida ah inuu kooxda sii joogo. Barcelona ayaa dhex taagan wali xaalad dhaqaale oo adag iyadoo lagu leeyahay deen gaaraysa 1.3 bilyan oo euro taasi oo xataa u saamixi weyday in saxiix cusub soo diiwaan gashatay kala ciyaareedkani. xidigaha ay Barcelona suuqa kala iibsigani ka soo qaadanaysa waxay u badan yihiin kuwa qandaraasyada ay kooxahooda kula jiro u soo ilaaday. difaaca dhexe Chelsea Andre Christensen iyo qadka dhexe AC Milan Frank Kessié ayaa labaduba muddo ka hor dhameystiray heshiisyadooda ay Barcelona ay ugu soo dhaqaaqayaan. balse sababta loo shaacilay ayaa ahay xidigahani goor hore dhameystiray ogolaadayna in kooxdani ay u soo dhaqaaqan ayaa ah xaalada dhaqaale ee Barcelona haysta awgeeda. waxa xaaladaha dhaqaale ee kooxdani sanadihii ugu dambeeyay haysta xitaa waxay kaliftay in xidigooda Messi oo kooxda isaga dhaqaaq kuna biiro PSG. xaalada kale oo kooxdani xataa dhaqaale awgeed Barcelona waxay u sameynaysaa in garoonkeeda Camp Nou ay kireyso si ay aroosyo ugu qabsadaan taageerayaasha kooxda islamada dadka reer Catalan iyo dad kale xitaa. waxa la arkay aroos lagu dhigay Camp Nou saacadihii ugu dambeeyna hadal hayn badan sameynayay. arin kale oo Gerard Piqué oo iyaduna qudheeda kooxdani haysata ayaa jirta. Gerard ayaa la leeyahay waa Piqué waxa uu qiyaamay Shakira isaga oo ku qiyaameeyay hooyada xidiga Gavi waa da'yarka Barcelona u ciyaara. arimahaasi badan ayaa Barcelona ku qoofalan balse warbixinteena waxaan kaga hadlaynay xidigii ay u hanjabtay ee Martin Braithwaite hadii aad kooxda oglaan weysi inaad ka dhaqaaqdo man ku ciqaabi doona ay kooxda uga hanjabeen. tani ma ahan marka koowaad ay kooxda u hanjabeysay xidigo dhowr ay sidaan oo kale ugu hanjabtay ugu dambeeyna waxay noqdeen kuwa kooxda isaga dhaqaaqa oo ogolaada iyo kuwa magdhawyo ay siisay oo qandaraasyadooda ay burburiyeen.